سعيد عبد الله الدني أو كشقين يسيد أمة الصومالية أسي كلا فوقان لهيد بربر يدبا تنا ربعينو دلك الصومالي أو هرسيدو مركو شالي كل واقعي إن أي سمايسنا يلعق بطلان أو قارة وأنا وح شروع دلك ويا لحد جذب كاه waxaa kaloo aan rabaa inaan ka hadlo Nuur Cabdi Sheekh Nuur Dheere xoghaynta Axmed Madoobe iyo Maxamed Axmed Sabriye Basaam oo ah taliyaha nabad sugidda Jubbaland oo dhibaato ku tagrifal awoodeed u geysanaya dhalinyaradii laga soo qabtay Kamboni ee beesha Maqaabul iyo beesha Tolomoge arrintaas oo noqon doonta arrin hadhow la isku xisaabtamo miiskana la isku iman doono hadduu Ilaahay yiraahdo waqtigay doonta ha noqotee waxaa kaloo aan rabaa inaan ka hadlo odayaashii Axmed Madoobe sida sharci darrada u soo malmaluuqay oo maanta caqabad weyn ay ku haysatay Kismaayo iyagoo qaarkood ay ku xanuunsanayaan la diiday in ay ka baxaan airportka magaalada Kismaayo magacyadooda loo dhiibay Badar oo ah taliyaha airportka Kismaayo lana yiri hal oday oo magaalada ka bixi kara ma jirto oo Axmed Madoobe amar ku siiyay markii ay halkaasi timid kala shaki iyo isfahan waa haddaba haddii aan ku hormaro dulucda ujeedada سعيد عبد الله الدني أيها شلي ميل مدلا وحكا دواقين بدلان لعق سميسان دونتو لعقتاسو أستان أوغا دغاي جيلي عثمان محمود تبرتي عمر محمود يا أريغي عيسى ريولي waliba waxa si gaar ah loogu sii astaameeyay isgoyskii Ciise ku caro maalinkii Ciise ay ka hor imaanayeen Saciid Cabdullaahi Dani waana masiibo ummadda Soomaaliyeed dhibaato ku ah dalka Soomaaliya waa dal hal dawlad ah waa dal hal dhaqan leh waa dal hal nidaam leh maanta in ummadda Soomaaliyeed la sii kala fogeeyo Saciid Cabdullaahi Dani shalay iyo Axmed Madoobe iyaga ayaa Xasan Sheekh Maxamuud meel madala ku doortay حسن شيخ محمود هدو ما أنت ديدي وحي شلي الملوقي يا أنا قف كاسردايا يا أنا سايلايا أو حكم كي أمد الصوماليات قعنته ذو كسر عليه أو قفوا المسير كي سيدو أطور لها أودياري حلو ديدايا محالو عريا صومالي ذو وحبضن وحي ترى عدو كعني أمو كعيدي سعيد عبد الله الدنيا أحمد ومد الصوماليات عقبت بيقين من ذلك الصوماليات ببربروه رسيدايا من ذلك الصوماليات خوارج توكتو أيوق عسار للإيهاي oo waa kii shalay ciidanka Soomaaliyeed oo wax dhibaato ah geysanin Amazon rabeeyay meesha kala wareegan soo weeraray isagoo khawaarij soo adeegsaday mar Itoobiya la aado mar Imaaraat la aado mar dalka Soomaaliyeed la dhibaateeyo waa caqabada koobaad ee Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madoobe ay dalka ku hayaan shalay meel madal ah ayuu wuxuu yiri Saciid Cabdullaahi Dani anigu uma socdo doorasho madaxweyne ummadda Soomaaliyeed inaan noqdo ma rabo laakiin aan farmaajirida bas rabaa maalin walba marka halkaas aan taagnaynaa maalin walba ummadda Soomaaliyeed ma dhib kaas bay ku jireysaa waa waxaan dhacaynin waxaan rabaa inaan kaga gudbo Dani iyo dhibaatadiisa hadii aan u dhaadhaco Nuur Cabdi Sheekh oo ah xoghaynta Axmed Madoobe iyo Nuur Dheere oo lagu magacaabo Nuur Dheere iyo Maxamed Axmed Sabriye Basaam oo rag halka wajiyadooda idinka muuqdaan ayaa waxay dhibaato lixaad loo geysanayaan jirdil garaac ku tagrifal awoodeed maalin walba u geysanayaan dhalinyaradii ciidankii daraawiishta Jubbaland ee laga soo qabtay dagaalkii Kamboni oo Axmed Madoobe sida sharci darrada ah oo weerarka uu qaaday iyadoo wax duulaan lagu yahay aynan jirin maalin walbana lagu dhibaateynayo gudaha magaalada Kismaayo sababteedana ay leeyihiin Nuur Cabdi Sheekh oo lagu magacaabo Nuur Dheere iyo Maxamed Axmed Sabriye Basaam taliyaha nabad sugidda Jubbaland waa arrin la isku xisaabtami doono Maqaabul iyo Tolomoge oo taala qaabkii ay ula xisaabtami lahaayeen dulmigaas iyo dhibaatadaas haddii iyagu sababta leeyihiin iyo haddii Axmed Madoobe uu sababta u soo dhiibeyba waxaan rabaa inaan intaa kaga gudbo haddii aan u dhaadhaco nabadoonnadii ama odayaashii sida sharci darrada Axmed Madoobe u malmaluuqay shalay isaga waxa ay la jiray garab taagnaa ayaa maanta waxay ku dhibaataysan yihiin magaalada Kismaayo liiskoodii iyo magacyadoodii waxa la geeyay airportka magaalada Kismaayo waxa loo dhiibay taliyaha airportka magaalada Kismaayo ee Badar waxaana amar lagu siiyay in xataa haddii ay naftu ka baxayso wax bixi kara oonan jirin magacyadooda وحواي علامات قارة لإساري قف نبضوله بيحك قاركود با waxay ku xanuunsan hoteelada magaalada Kismaayo oo waxawaaye ay doonayeen inay isbitaal aadaan qaar ba waxawaaye kaliyihii kaadin laga miiran rabay oo kaliyahoodii ay khatar ku jirtaa sida laaliga dhibaato xoog leh ba ku haysato waa nasiib darro raggii shalay isaga sharci darrada ku doortay in maanta kala shaki intuu yimaado la yiraahdo magaalada kama bixi kartaan cid dhaqaaqi karta malaha odayaashiina caqabad aad u weyn ba haysata waxa kale oo dadka magaalada Kismaayo soo food saaray sicir barar dhaqaale noloshiyo aad ugu xun amnigiyo qalqal ku jira magaaladii oo sii kala fogaanaysa dadkii oo sii kala fogaanaya ciidamadii Jubbaland qaybtood waxa lagu sameeyay hubka dhigis markii laga shakiyay
وانا دباتين تدلك أحمد مدوبة يا سعيد عبد الله دني ومدة الصوماليات سيدا قواريج أوكلا أيكوين maalin walba in ay dhibaato maalin walba madaxweynihii taagan in ay lugaha qabtaan maalin walba dalkan Soomaaliya markuu dhinac u jihaysto in lugaha lagu dhago war ra'iisul wasaare Xamdi Cabdi Barre wuxuu matalaa ummadda Soomaaliyeed xasan sheekh wuxuu matalaa ummadda Soomaaliyeed xasan Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madoobe shalay idinka ayaa doortay idinka ayaa cod ka siiyay maanta hadduu xasan sheekh maxamuud taagan yahay sharci darro madamba oo la isku dooranaya ma jirto dalka Soomaaliyeed dadkii lahaaba gacantooda xukunka lagu celinaya maxaa idin haya de waa kalsooni darro aad ka qabtaan ummadda Soomaaliyeed waayo cid inay dooranaysa ma jirto nin argagixisada gacan saar la leh iyo nin caqabad ku ah ummadda Soomaaliyeed cidna ma dooranayso waxaan rabaa gabagabada iyo gunaanadka inaan bogaadiyo wasiirka amniga federaalka Soomaaliya mudane Farataag oo maalmahan hawlgal aad u qurux badan ka wada gobolka Gado dadka reer Gado dhibaato badan bay soo mareen shalay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baa waxa waaye ciidan keenay ciidankaasoo rabay in xuduudda la geeyo arrintii waa la carqaladeeyay maanta dawladda federaalku waa in ay gobolka Gado gacan aad u ballaaran kaga qayb qaadato istiraatiijiyad horumarineed gobolka Gado kama jirto Axmed Madoobe la haray hadda ka hor xukuumadii hore wax horumarin ay u sameeyeen ma jirto gobolka Gado waa in amnigiisa la fariisiyo waa in loo sameeyo horumarin abni waa in loo sameeyo horumarin dhaqaale waa in iskooladii waxbarashada iyo caafimaadkii iyo wadooyinkii gobolka Gado wax ka hirgalay 13 sano Axmed Madoobe joogay kuma uu sheegan karo $1 $1 oo gobolka Gado horumarina wax aan ka ahayn tuu gobolka Gado sheegata oo maalinba uu jeebka soo gashto intuu dhaqaale siiyo oo raad dadkiina soo baabiya sida laadigeed wasiirka amnigu wuxuu wadaa hawlgal aad u qurux badan wuxuu la kulmay odayaashii dhaqanka wuxuu